maalin wanaagsan. Waxaan halkan jeclahay inaan idinku soo bandhigo qiso kale oo ka mid ah qisooyinkan maalmahan ka sheekeynaya sirdoonka Soomaaliya. Qisadan xubinta aan ka soo gudbinayo waa ka duwan yahay sargaalkii hore madaxdii ka mid ahaa sirdoonka Soomaaliya. Xubintani waa xubin la shaqaalaysiiyey sirdoonka intaanan marka shaqadiisii iyo sida u howlgalay noloshiisii dambaan idinku celinaya. waa inaan saaxiibnay allah u naxariistay waa dhintay koronihii dadka ku baxay buu ka mid ahaa weliba aan la socday xaaladiisa oo intuusan dhiman waan wada hadlaynay aad inaan iskugu dhownahay buu ah allah u naxariisto idinkana inaad ducaysaan baan rajaynaya. qisadiisa marka aan idin bilaaba magaciisa waxaan kusoo goobahayaa xus waayo inaan xuso weeye marka xus baan leeyahay. ninka odayga ah waa dadkii ku dhashay xamar wax ku bartay 1968 buu waddanka ka baxay asagoo galay East Africa. waxaan galuu yiri waddankan Kenya halkaasoo aan isku dayay anoo wiil dhalinyaro ah inaan waxbarasho baan markii hore u baxoy inaan wax laakiin markii dambe waxaan galuu yiri inaan ganacsiga galo naftayda aan ilaa iyo wuxuu tagay waddamadan Zambia ilaa inta u dhaxaysa Kenya buu 4 sano ka shaqeynayay 72 buu wuxuu yimid Talyaaniga. waxbarashadiisii ugu horeysay jaamacadeed buuna ka bilaabay magaalada Rome buu ka bilaabay. wuxuu yiri markaan halkaas dhigtay waxbarashadeedii jaamacadda aan dhammaynayo oo wuxuu bartay saxaafadda buu bartay media buu bartay aan dhammaynayaa waxa ila soo xiriiru yiri ardadaydii Soomaaliya nin ka mid ah oo saraakiishii sare ee waddanka noqday oo sirdoonka. ninkii baa wuxuu yiri fasaxa ugu horeeya tigid baan ku soo diray waa inaan Muqdisho timaadid hawl baan ku hayaa mugti. ninkaan saaxiibka ahayn fasaxii ugu horeeyo jaamacadda markaan dhamaystay baan Muqdisho galay. Muqdisho markaan galay wuxuu yiri hawl gaaran raba inaad noo qabatid. hawshu maxay tahay? waddanka aad joogtid oo Italy baad ka shaqeynaysaa. shaqadaaduna waxay noqonaysaa sirdoon meesha degan ka shaqeysa aan la aqoon aan ku xirnayn safaaradda laakiin waddankana dhex gala madaxdiisa ifan safaaraddan soo dirsanayna Soomaalida imaanaysa aduu waddankaasaad fadhinaysaa halkaasaad shaqadaadana wadanaysaa noona imaan maysid. wixii aad u aragtid inay waxyeello ku yihiin dhulka iyo dadka baad noo soo gudbinaysa. waxaan ku yiri haddaysan ahayn wax Soomaaliya ah bas weeye anigu waayo xagga baan waxbarashadeydii aan ka dhammaysanayaa markaan dhamaystana waxaan gelahayaa inaan shaqo ka bilaabaan rabo Talyaani. sidii baan la igu qoray madaxweynaha la igu geeyey kadib aan ka soo baxay Soomaaliya Italian imid muddada aan shaqeynayay ilaa 89kii cid ogeyd cidaan u shaqeeya ma lahayn macal familkayga ma ogeyn inaan shaqeynayo Soomaaliya arag halkaasaan deganaa Talyaaniga. safiir walbo Talyaaniga loo soo magacaabayo intaan la soo magacaabin baa la soo gudbiyaa qof walbo imaanaya Talyaaniga faylkiisa waa la soo sheegay hebel baa la soo bedelay ayaga laftigooda iyo shaqada hayaan baan ilaaliyaa waxaan ilaaliyaa dadkii kale oo Soomaalida xilligii jumhadaha markii la gaaray 76kii iyo niman mucaarad oo meesha degay baa jiray 78kii sidoo kale wixii ka dambeeyay noloshayda dhan waxay ahayd waxaana la ii yaqaanaa nin cadaan iska noqday baa la ii yaqaanaayo dadka Talyaaniga dhex galay. waxaan ka shaqayn jiray media Talyaaniga u shaqayn jiray oo Soomaaliya arag oo lama oga shaqadan hayn jiray. marka hawlaha uu qabtay oo intuu uu joogay dhowr ka mid ah buu ii tilmaamay. mid aan ugu jeclay waxa weeye oo shaqooyinka uu dhowrka uu ii sheegay inuu qabtay waa mid dhex martay niman ganacsato ah oo rabay maalgashi inay Soomaaliya ka sameeyaan oo waddanka Canada ka soo jeeda shirkad dhan oo rabtay inay Soomaaliya maalgashi ka sameyso laakiin shirkadda iyo ganacsiga ay u socotayba
ma ahayn buu yidhi kanadiyaan yuhuud bay ahaayeen. soo maad arag. marka waxay iigu yimaadeen talyaaniga, waxayna ii soo bandhigeen inaan waddanka geeyo. ay dalxiiska horumarinayaan, shirkad dalxiis bay ahayd kanada ka jirta. sidaasaan waxaan go-aansadu yidhi inaan soomaaliya ugu kaxeeyo. laakiin kaxayntii iyo hawshii iyo mashruucii wuxuu isku bedelay buu yidhi arrin kale oo siyaasadeed oo aada u weyn. soomad arag. waana markii ugu horreysayoo aan geeya buu yidhi waddanka niman ka socda dowladda yuhuudda moogta. marka qisadaasoo faahfaahsan waxaan rabaa inaan barnaamijka kan xiga aan ku soo saaro hadduu ilaa yeelo. kan intaasaan u daynayaa inaad la sii socotaan xubintaas xuska aan ugu magac daray iyo shaqadii ay u galeen waddanka iyo siday isku bedeshay iyo sidii madaxweynihii iyo kulankii dhex maray madaxweynaha iyo wixii dhacay. oo waana cashir aada u weyn weeye oo waxyaaba hadda dhacaya maantadan markaad fiirisid adduunkan casriga ah. waagaasna waa dhici jiray laakiin dad gaara baa arki jiray ama la socday. qisadaasaan rabaa marka barnaamijkan kan xiga inaan kusoo qaato. waadna mahadsantihin.